waxaasuna fircoon way la wanaagsanayeen isaga iyo addoommadiisiiba markaasaa fircoon wuxuu addoommadiisii ku yidhi miyaynu heli karaynaa mid la mid ah kan oo ah nin ruuxa ilaah ku jiro markaasuu fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi mar haddii ilaah ku tusay waxyaalahan oo dhan ma jiro mid sidaadoo kale caqli iyo xikmad u leh adigu waxaad ka sarrayn doontaa gurigayga dadkayga oo dhanna waxaa lagu xukumi doonaa si waafaqsan hadalkaaga oo anigu carshiga oo keliya ayaan kaaga weynaan doonaa markaasaa fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi bal eeg dalka masar oo dhan ayaan kaa sarraysiiyey markaasuu fircoon gacantiisa ka bixiyey kaatuunkiisii oo yuusuf gacanta u geliyey oo wuxuu u xidhay dhar aad u wanaagsan silsilad dahab ahna qoortuu u sudhay oo wuxuu fuushiyey gaadhi faraskii labaad oo uu lahaa oo waxay hortiisa kaga qayliyeen sujuudda oo wuxuu ka sarraysiiyey dalka masar oo dhan markaasaa fircoon wuxuu yuusuf ku yidhi anigu waxaan ahay fircoon oo adiga la'aanta ninna gacantiisa ama cagtiisa kor uma qaadi doono dalka masar oo dhan markaasaa fircoon wuxuu yuusuf magaciisii u bixiyey saafnad facneh oo wuxuu u guuriyey aasanad oo ahayd ina footiifeeraac wadaadkii oon yuusufna markaasuu dalkii masar oo dhan u baxay oo wada maray yuusufna 30 sannadood buu jiray markuu hor istaagay fircoon oo ahaa boqorkii masar markaasaa yuusuf fircoon hortiisii ka tegey oo wuxuu wada maray dalkii masar oo dhan markaasaa 7 sannadood oo barwaaqada ahayd waxaa dhulkii ka soo baxay wax aad u badan markaasuu ururiyey cuntadii 7 sannadood baxday oo dalka masar oo dhan tiil oo cuntadii wuxuu ku kaydiyey magaalooyinka cuntadii beerihii ku wareegsanaa magaalo kastana isku meel wuu ku kaydiyey markaasaa yuusuf haruun aad u badan wuxuu u kaydiyey sida camuudda badda ilaa uu tirintii daayey maxaa yeelay waxay ahayd wax aan tiro lahayn oo yuusuf waxaa u dhashay 2 wiil intii aan sannaddii abaarta ahayd iman oo waxaa u dhashay aasanad oo ahayd ina footiifeeraac wadaadkii oon markaasaa yuusuf wuxuu curadkii magaciisa u bixiyey manaseh waayo wuxuu yidhi ilaah waa ay ilowsiiyey dhibaatadaydii oo dhan iyo gurigii aabbahay oo dhan kii labaadna magaciisii wuxuu u bixiyey efrayim waayo wuxuu yidhi ilaah waa igu badiyey dalkii aan ku dhibtooday markaasaa 7 sannadood oo barwaaqada ahayd ay dalkii masar ka dhammaadeen oo waxaa bilaabatay 7 sannadood oo abaarta ahayd sidii yuusuf yidhi dalalkii oo dhanna abaar baa ka dhacday laakiinse dalka masar oo dhan cuntaa jirtay oo markii dalkii masar oo dhammu wada abaarsaday ayaa dadkii fircoon cunto ugu qayliyeen markaasaa fircoon wuxuu ku yidhi masriyiintii oo dhan yuusuf u taga oo wuxuu idin yidhaahda yeela oo abaartuna waxay ka dhacday dhulka dushiisa oo dhan markaasaa yuusuf wada furay maqsinnadii oo dhan oo wuxuu hadhuudhkii ka iibiyey masriyiintii abaartuna aad bay ugu xumay dalka masar markaasaa dalalkii oo dhammu waxay u soo safreen masar oo yuusuf bay ugu yimaadeen inay hadhuudh ka iibsadaan maxaa yeelay abaartu aad bay ugu xumayd dhulka oo dhan